السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام دمان أصحابتي قالقة أصحابتي قالقة دمانتين سيتين في عنتين من نبض قبتين إلى إذن كيس وإذي رجينا لبا كلا بريدة لي كلا ورلا أمورت خير الله نوغا دقا صاحب قالقة يوكسو دوادي كان وشانل ضبيب وشانل صاحب وشانل وانا ساو اكتهين با ووالكم سو نوغد وناكسن kheyr iyo farxad la soo dhawaada qofkii nagu cusubow soo dhawaaw waxaa laga yaabaa dadka qaar inaa hadda nagu cusub tihiin marka soo dhawaada waa jeclaan lahay inaan soo gala si toosay si live ah waqtigaa iska ciriiriya allah noo barakeeyo kheyr allah ida siisaa idiin sheegaba kalibyadii lasoo dhaafayna aada uga fahanteen shaygii waxtar leh ama waxyaabaha idinkugu adeego iyo wixii noo wanaagsanba waxaan soo gelinayaa magaciisa amaba hortiinaan soo dhiga ama magaciisa ciwaankan soo saaraa kheyr allah ku siiya maadaama waxtar la lagugu adeegayo ama wax dabiibka u fiican ama quruxda u fiican ama caafimaadka u fiican adiguna doono alaabaha qaar oon idin tusaayo waxaa laga yaabaa inay leeyihiin shaah waxaa laga yaabaa inay leeyihiin bowdar ama dawo ama saliid marka shayga sii dabagal adiga iyo shayga isbarta adiga iyo dabiibkaaga isbarta insha allah wixii caafimaadkaaga u fiican ama quruxdaada u fiican wax walba loo quuraa sax ama waa loo gartaa ama waa loo huraa marka wixii naftaada u wanaagsan fadlan u xilo shaygan maasha allah aan idinkugu adeegayo waa rose hip shaygan waa vegetarian saa u aragtaanba vegan ay vegetarian loogu talagalay sax waa kaniin saa hoos uga jeedinba waa kaniin waa wax dabiiciya suitable for vegetarian iyo vegan magaciisa waxaa la yiraahdaa rose hip rose waa ubax hip oo ujeedinaan maleynaa nafaqadan aad iyo aad iyo aad iyo aad loogu amaanay dhanka caafimaadka amiin waxtarkiisa waa maasha allah meelo badan oo jirka ka anfaca sidoo kalena dhanka quruxda waa waxyaabaha loo isticmaalo anti aging dadka qaarkood waxay sii riixayaan da'da marka da'da markaad riixayso maaha ina maqaarkaaga bas uu qurux badnaanayo gudahana waa ka qurux badnaanaysaa maasha allah dadiyowga qaarkood ee channelkan ku xiran waxay jecel yihiin arrimaha fertility-ga ama arrimaha caafimaadka qoyska qaas ahaan isku diyaarinta awlaadda amaba sixista hormoonka iyo caadada iyo wixii lamid ah marka qofku markuu jirkiisa uu waxtar u helo si maaragtay nafaqo fiican markuu helo waxaa dib u noqonaya baabi iyo hormoonka ama baabi iyo waxtarka oo maaragtay wax dhibkii ay caafimaad darradu ay lahayd marka jirkaaga gadaal u riixaysa si jirkaaga uu active u noqdo haddaad 40 jirta laaka 30 camal laaka 30 haddaa jirta laaka 20 camal laaka 50 haddaa jirta laaka 40 camal like you going back 5 sano 10 sano 6 sano hadba intaad adigu isla tacaasho marka anigu ma aqaan waxaa cunto ma aqaan waxaa cabto dawooyinka aad qaadato fitamiinaadkaaga shaahyadaada maraqaaga boorashkaaga fruitkaaga I don't know waxaa cuntid laakiin inta waa meeshii lagu tilmaamayo wixii fiican ama dalkii joog ama dibadda joog wixii haddaa taqaanid waaba taqaanaa haddaadan aqoonin waa meeshii lagu dhahayo shaygan waxtar uu leeyahay baro raadso qoro kheyr allah idin siiya maadaama aniga aan arrimaha idinkala shaqeeyo oo dibalansataan ayaantan waa yareeyay qof ka tegay ama qof maaragtay i huri waayey ama iga maarmi waayey bas leen la shaqeeyaa inta kale waxaa waaye danahan guud inaa idiin wado ayaa muhiima ehelkiiyo guriga fadhiya dadkiiyo magaaladii laga wada fadhiisayana waa joogaan howlihiinina waa jiraan marka aan iscaawino wixii waxtar la qoro baro raadso waxaaba laga yaabaa exactly shaygan aan ka hadlayo inaad adiguna ka hesho dukaamadaada ama xorriyadaada aad aaladda uga dalbato haddaa cunto ood cabta ilaahay daawaha kuugu daro midda kale kheyr allah ku siiyo aniga xasuusin lee waaye awalba fahansiinay faahfaahin leh arrinkayga iga ahayd waxaan ku xasuusinaa shaygan ama aan kuu sheegaa aan ku baraa shaygan waxtar uu leeyahay fadlan adiguna doono hadday baahidaadu tahay arrinka soo socdo caafimaadku u fiican yahay fitamiinaad badan oo wataa insha allah adhikooladiisa waa arki kartaan haddaad raadisaan haddaad youtube-ka dib u geliso laga yaabay dad kale oo ka hadlaa inaad aragto ama soomaali ama ajnabi ka hadlaayo waxaa laga yaabaa haddii aad qorato ood barato ood raadsato inaad kheyraad badan ugu tagto ood shayga aad usii jeclaato shaah ahaantiisa inaad cabto ood isbeddel korkaada ka aragto annaga nafteena waxay iska fiirisaa
dad qurux badan iyo wax hagaagsan iyo see lagu helahaan korka uga soo dhacnaa. marka dadka qaarkood waxaa ku jiro maasha allah quruxdooda allaha u barakeeyo caafimaadkooda inay tacab isgeliyeen inay wax isku quureen. marka qofkaan tacab isgelinin waxaad sugtaa liri waa ku sugaan. adiguba qiyaas gurigaagu isku dhex yaacsan haddaad indhaha ka aragto iyo haddaad fadhiga ka kacdood kala tootoosisa kala fiican sax. caafimaadkuna waa saas. haddaad fadhiga ka kacdood kala tootoosiso insha allah wax unbaa kuu hagaagayo ilaah idinkiisa wax kheyr leh. haddaad indhaha ka fiirido ood maalin walba maalinta kala sugato oy maalinba maalin kuu amaahato marka dambe waxaaba laga yaabaa inuu xataa cimrigaagu tago oo hadhowna aad istiraadida gabow baaba ahay maxaan ka qaban karaa waa gaboobee maxaan ka gaaraa. marka insha allah haddaad caafimaadkaaga xal u raadinaysay haddaad quruxdaadii hanaankaaga aad xal u raadinaysay allaha kuu sahlo. shaygan wuxuu ka mid yahay waxyaabaha quruxda lagu koolkooliyo hadday tahay bowdharkiisii hadday tahay caleentiisa iyo shaaxiisa hadday tahay kaniinkiisa ama tabletkiisa adigu wax xal keena raadso. shaygan wuxuu ka mid yahay waxyaabaha soo celiyo quruxdaada iyo hanaankaaga insha allah. marka dadka dhalaalayo ayagoo birraqle bannaanka maraayo dadka qaar kuu sheegi maayaane gurigu waxaad muddaa farmashiye iyo dukaan intaasna maxay isku naashnaashaan wax walo ayaga u fiican. waa laga xishooda ani gabdhaha qaar waxay dhahaan haddaan u sheegi lahaa asxaabteyda iyo eheladeyda waxaan cuno oo waxtar la wayba ila yaabaan. qaarkood waxay dhahaan ma fahansii karo saaxiibadeyda waxaanan isticmaalaa laakiin waxay u jeedaan anigiyo maasha allah hadda dhalaalayo. marka dadka qaar waxaan u diraa janalkaaga saan u dhaho janalkaanba la socda talooyinkii waanooyinkii nafaqada. marka way iska qiyaasi karaan inaan anigu ahay dadka daneeyo wixii wax u roon ama waxtar leh. marka waanada iyo dabiibka iyo nafaqada waxaa daneeyo qof naftiisii ay muhiim la tahay. maasha allah qof walba naftiisa muhiimay la tahay laakiin dadka qaar ma u cagjoojiyaan way ka mashquulaan nafta ayaga ugu dambeeya wax loo qabto. waxaa laga yaabaa inay gurigoo dayactir u baahan inay guriga qurxiyaan inay waxyaabo kala hagaajiyaan laakiin naftooda inayna qurxin. laakiin maalin maalmaha ka mida markay arkaan ayagoo camuumyo lasoo booday ama jirkii oo kala daatay ama jirkii oo xanuun keenay ama ciladaha caafimaad darre ee riboodka ee dhakhtarka sida dhiigla-aanta iyo hormoonka oo qalqal ku yimid waxaa markay dadka arkaan inay soo boodaan ay soo baraarugaan markaa maxaan ka gaaraa la carcararo. marka inta haddaa saaxiib la tahay insha allah wixii waxtar laa lagu keenaa adiguna qoro sii raadi. intaas waxaan raadinaynaa inaa shaygii waxtarka lahaa ee caafimaadka u fiicnaa meel kalena aad ka heshay informationkiisa dabadeedna aad u bogto waxaad u bogto ood jeclaysato ood naftaada u xilato unbaa dabiibkana loo huraa sax. marka dabiibka waa wax aad u hurayso waa waqti aad u hurayso waa wax aad lacag gelinayso waa waxaad ilaahay kaga rajaynayso inaad ku caafimaado hadday quruxdi tahay iyo hadday caafimaadki tahayba. marka janalkan arrimahaasaa looga hadlaa. qofkii markaa la fariistana waa qof ama wixii hore raba inuu helaan waayo markaa meesha subscribe samaysato janalku wuxuu ku tusaa wixii hore xataa waxaa laga yaabaa 2 years ago video ah inaad hesho 4 years ago video ah inuu kuu soo boodo. marka haddaa saaxiib nala tahayna waad arki insha allah haddii aadan nala ahayn hadda nala noqotana insha allah waad la socon doontaa barnaamijyada. marka Rose Hip dadka aan sida qaaska ula shaqeeya saaxiibada qaaliga reer dabiib reer dadaal way ogyihiin. saaxiibada janalkan ku xiran hadda koorba waa ka hadlay ama barnaamijyada telegramka iyo magaalada whatsapp markaan imaado waxyaabaha aan idinkala hadlo oon weliba kusoo celceliyay ka mid tahay ani ahaanteyda shaqsi arrimahan qaataan ka mid ah shaaxa iyo bowdharkiisa iyo kaniinkiisa iyo dadka qaataa ka mid ahay waxtarkiisana waa arkay waa cid kaleba la weydiimaa waa dareemi kartiin aan umaleynaa qof arrimaha dabiibka ka hadlo yaa aniga igama roonay sheekada taagan tahay. marka khayr allah idin siiyo dadka qaar waxay dhahaan maamoy maxaan kusoo celiyaa hanaankeygii. I mean sometimes waxaa dhici karta inaad yara dhaliisho maanta xaalka siduu yahay wajiga madmadow kaa galay iyo daal fara badan oo maqaarkaadii ka muuqda iyo I mean weli da' ma tihid oo da' la leeyahay gabadha waa waayeelad ma tihid laakiin waxbaa yaa kaa daba yimid. marka waa run oo jirka markii la nadiifiyo oo wasaqda laga bixiyo oo nafaqo la qaato dhalaalka waa soo noqonaa.
marka insha allah dadka dabiibka jeclaystay ama raba inay caloosha bixiyaan ama maqaarkii uu qurux badnaado ama timihii uu qurux badnaadaan nafaqa waa buuxdaa laakiin tee waay marka tartiibtaada u baro waqti geli waxaad adigu waqti gelisaa beriyaad maasha allah waxbarashadeeda lasoo kala baxdaa rose hip waxay ka mid tahay dhirta aan dhirarka ugu jeclahay ee nafta lagu quruxsado ilaahay daawaha kuugu daro sii baar adiguna sii baro wax badanay u fiican tahay maasha allah mana dhadhan xuno dhirtaa ma dhadhan xumo annaga soomaali haddaana qaraaraa noo daran wax hadday qaraar yihiin xoogaa yaa waa yara ashashnaa sidoo kalena hadday uraayaan dhirta urna ma laha aad ayay u fiican tahay shaaxeeda malab yar haddaa ku darsato maasha allah gabar uurla haddana maya gabar uurle ku jira cali wax walba way jeceshahay gabdhaha uurkale maasha allah wax walba way jecel yihiin marka khayr allah idin siiyey gabar uurle yac inta kale laakiin hala cuna hala cabo ilaahay caafimaada noogu daro afkoos nin ragana wuu qaada karaa waa inaan raggana loo tilmaamaa wixii fiican amuurta khayr allaha ka dhigo qof walba hamigiisa ilaahay baa og wuxuu jecel yahay ilaahay baa og wax khayr la kuwa ku hamiye ilaahay naga dhigo wax noo fiican kuwa qaato ama jeclaysta allaha naga dhigo waxaa cunay waxaa cabnay ilaahay caafimaad noogu daro aamiin yaa rabbi aan isku soo duceyno dhib badanaa jiree allahana mootiyo khayr badan iyo farxad badana ilaahay noo wada weydiinaa roosib haddaa raadsataan ilaahay caafimaad ha idinkugu daro آمين يا ربي عافية عافية ما ضوي إنه يكليبك كلا دوي لا يرادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.